وكان دوين يجيبنا وعدا بلدين الدوم حتى دولك وكان دوين يجيبنا وعدا بلدين الدوم حتى دولك وكان دوين يجيبنا وعدا بلدين الدوم حتى دولك وكان دوين مروك عند البين يوم دوبنايا مني مدانا دغ يوسف لمايا عارفنا تيريا دافعيا barnaamijyadeennii taxana ahaa ee daawadayaal aanu habeenadan tacsida heer qaran ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya xisbiga dawladda iyo dadweynuhuba ay u sameeyeen marxuum halgame Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo telefishinka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya idinku talagalay ayaa barnaamijkan caawina uu ka mid yahay taxanaha barnaamijyadaasi waxa aynu halkan inagala qayb qaadanaya barnaamijkan oo aynu fursad u helay nasiib wanaaga runtii martina oo microphone-ka iyo shaashada telefishinka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya halgamaya kamida halgamayaashii taariikhda weyn dalkeena ku lahaa qaar kamida iyo rag aqoon u leh taariikhda iyo dhacdooyinkii SYS iyo halgankeediba haddii aan idin dulmaro saddexda oday ee maanta barnaamijkan nagala qayb qaadanaya magacyadoodana aan idin baro waxa ugu horeeya Ali Shiddo Cabdi oo ahaan jiray gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga SYL waqtiyadii halganka uu ku jiray Ali Shiddo waa ninka garabkayga midig hadda fadhiya Cabdiraxmaan Xaaji Mumun oo kamid ah halgamayaashii iyaguna taariikhda weyn ku leh dhinaca halganka gobonimo doonkii iyo halgankii SYL ayaa isna ninka garabkayga bidix fadhiya waxaan uu ahaa oo xilalkii uu soo qabtay markii halganku uu socday ugu weynaa isagoo ahaa kaaliyaha xogayaha guud ee xisbigii SYL Cabdillaahi Sheekh Xuseen Cabdillaahi Hanti Wadaag oo aan filayo daawadayaal in maqalkiisu in badan idinka soo gaari jiray idaacadaha dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya ayaa isaguna kamida ragga caawa inooga warrami doona taariikhda halgankii SYL wuxuuna Hanti Wadaag yahay ilaa iyo haddana hawsha uu hayaa ay tahay qoraa iyo saxafinimo haddaba haddaan u guddogo barnaamijkeena iyo dawladda caawa aynu ka hadlayno waxa weeyaan tii aynu horeba uga hadli jiray daawadayaal ee la xidhiidhay taariikhdii halgankii allaha u naxariista ee marxuum Cabdillaahi oo aynu si aada barnaamijyadii hore ugu soo qaadnay haddaba caawana waxaynu jecelahay maadaama halganka Cabdillaahi iyo halganka SYL sidii horeba aanu idinku sheegnay ay yihiin qaar aan la kala qali karayn inaynu marka hore bal ku soo bilowno taariikh gaaban iyo arar aan sidaa u sii weynayn oo aan barnaamijkuba inoo ogolaanayn inaynu ku sii fidsanno oo la xidhiidha aasaaskii xisbigii taariikhiga ahaa ee SYL odayaashiisii iyo halgamayaashiisiina uu ka mid ahaa kacaawa aynu tacsidiisa u fadhino ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye dulmarkaa gaaban ee la xidhiidha taariikhdii aasaaskii xisbiga SYL waxaa halkan inoogu haya oo soo ururiyey Cabdillaahi Sheekh Xuseen Cabdillaahi Hanti Wadaag Cabdillaahi ku soo dhow microphone-ka arrintaana noo dulmar mahadsan allah u naxariistee Cabdullaahi Ciise Maxamuud wuxuu ahaa halyey ay ku kulmeen sifooyin suuban oo xilligii ay naadir tahay wuxuu ahaa geesi wuxuu ahaa codkar wuxuu ahaa bulshi wuxuu ilaahayba u siiyey haleelidda talada quman iyo qorinta afkaarta muwaafaqada iyo toosinta allah u naxariistee Cabdullaahi Ciise Maxamuud wuxuu ahaa hogaamiye la mahadiyey oo daacadnimo iyo mukhlisnimo dalkiisa iyo dadkiisa u adeegayay marxuum Cabdullaahi Ciise wuxuu ahaa haliyey ku caanbaxay qiiro iyo ficilo Soomaalinimo sifooyinka oo uu ku kasbaday gacal waara iyo qadarin ay u hayaan tulweynaha Soomaaliyeed magaca Cabdullaahi Ciise wuxuu ahaa oo noqday astaanta ramsiga u ah midnimada wadajirka iyo halganka ummadda Soomaaliyeed mid ay ku heesaan kuna faanaan muwaadiniinta Soomaaliyeed mid ay ku hadaaqaan dhalinta soo korisay qoraantii qaraxii dagaalkii adduunyada ee labaad ciidamadii taliskii fashistiga ah ee Talyaaniga oo xulafada la ahaa taliskii naasiga ee Jarmalka waxay ku duuleen gobollada waqooyi oo hore Ingiriisku gumaysan jiray waxaana u suura gashay ciidamadii Talyaaniga
in 11 Agost 1940 ay qabsadaan dhammaan gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya. guusha Talyaanigu waxay ahayd mid aan waarin oo muddo gaaban noolay. Ingiriiska oo soo laba kacleeyay wuxuu qaaday duulimaadkii baaxadda weynaa ee la magac baxay ololihii bariga Afrika iyo xoreynta dalka Itoobiya. waxaana dagaalkii si ba'an loogu jabshay Talyaaniga oo laga saaray gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya bishii May 1941 taasoo keentay in Ingiriiska ay gacanta u galaan gobollada waqooyi, gobollada koonfureed iyo Soomaali galbeed oo dhan. dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan dhalintii xilligaas xog ogaalka u ahayd dhacdooyinka dunida ka aroosan waxaa saaqay qayladhaamadii gobonnimo doonka ee dalalkii horey loo gumaysan jiray. 15 May 1943 waxaa abuurmay naadigii dhallinyarada ee ugu horreyn la baxay SYC. 13 dhallinyaro ayaa hadafka iyo wadaninimada iyo himilada gobonnimo doonku ay kulmisay, waxayna kala ahaayeen Abdulqaadir Sakhawudiin, Daahir Xaaji Cusmaan Geedi Raage, Maxamed Faarax Ilowle, Maxamed Cusmaan Baarbe, Maxamed Xisi Nuur, Xaaji Maxamed Xuseen, Ali Xasan Maslax, Maxamed Cabdullaahi Xasan, Yaasiin Xaaji Cusmaan, Maxamed Cali Nuur, Dheere Xaaji Dheere iyo Khaliil Hudow Macallin. asaasayaashii SYL badi ahaan raxmaddii Ilaahay ay u hoydeen. waxaa ka nool 4 qur ah oo kala ah Daahir Xaaji Cusmaan, Ali Xasan Maslax, Maxamed Faarax Ilowle iyo Maxamed Cali Nuur. waad mahadsan tahay Cabdilaahi. waxaan runtii aad iyo aad uga mabsuuday aniga lafahaantaydu sida taxan ee hufan ee kooban ee aad noogu dulmartay aasaaskii xisbigii taariikhda weyn ku lahaa halganka gobonnimada Soomaaliyeed ee SYL.